maskaxdii dunidu malaasan mawjadaheeda kala miirtay ee macnaysay maarhkii qarsoona waa misbaaxii kaahiisu maanka u maxayne mugdigii ka maydhay waa misbaaxii kaahiisu maanka u maxayne mugdigii ka maydhay 3.1 waynu soo aragnay waxaynu ku xigsiinana insha allah 3.2 waynu ka boodnay waxaynu u dhiganaynaa qaybta dambe maadaama uu ka kooban yahay graphiskii iyo chartiskii waxaynu u gudbaynaa unitka saddexaad ee chapterka oo noqonaya measures of dispersion waxaynu ugu horreysiin doonaa insha allah range quartiles interquartile range and percentiles waayahay and percentiles waay haddii wuxuu ka kooban yahay casharkan waa casharka ugu ballaaran ama waa qaybta ugu muhiimsan statisticska imika forka unitkan waa unitka ugu muhiimsan unitkii hore wuxuu ahaa revision form 3gii unitkan labaad na waxa weeyaan graphiskii oo isagu chartiskii u badan sidaynu ku arki doona insha allah qaybta dambe oo weliba ah sida loo turjumo graphiska ama chartiska aynu uga shaqayn karno markay sawiran yihiin laakiin qaybta ugu sii muhiimsan waa qaybtan waa 3.3 3.3 wuxuu ka kooban yahay laba qaybood waxaan ku horeynayaa weliba qaybta dambe oo iyadu ka fudud qaybta hore oo noqonaysa range quartiles interquartile range and percentiles qaybta labaad waxay noqon doontaa variance and standard deviation mean deviation variance and standard deviation marka labadaa qayboodba waa laba qaybood oo inagu cusub statisticska markaynu eegno ardayda form 4ka ku cusub oonay hore u soo arag form 3gii laakiin qaybtii hore ee casharkii koowaad aynu soo aragnay iyada horeynu usoo aragnay casharkan labaad insha allah waxaynu ku bilaabaynaa rangeka quartileska interquartile range and percentiles waxaynu ugu horreysiin doonaa haddii allahu yidhaahdo rangeka inaynu mid baynu isu dul taagi doonaa dhammaan kuwa halkan ku yaala insha allah casharkan intii aynu ka gaadhno ma wada dhammaystirayno waxaa laga yaabaa casharka saddexaad iyo ka afraad baynaynu iyaga wadno markaa xabad xabad baynu isu dul taagi doonaa insha allah waxaynu ugu horreysiinaa rangeku waa maxay the range of a data set is the difference between the largest and smallest data values waxa weeyaan rangeku markaynu soo qaadano definitionkiisa range waa maxay the range of a data set is the difference between the largest and smallest data values haddii lagu yidhahdo rangeka soo saar rangeka datadan soo saar haddii lagu yidhahdo waa kala goynta ama differenceka numberka ugu weyn iyo ka ugu yar oo la kala jaray waa labada cidhif ka ugu weyn iyo ka ugu yar kala goyntooda ayaa lagu helaa rangeka waxaa lagu helaa haddaynu soo gaabino range waxa weeya the range of a data set is the difference between the largest and smallest data values waayahay waxaynu odhan karnaa rangeka waxaa lagu helaa largest si aad u xasuusato minus smallest value waxa weeyaan waa rangeka waxaynu ku helaa waa marka lagu siiyo dhaytadii lagu qoro halkan lagu yidhahdo rangeka soo saar waxaad ku helaysaa rangeka waxaa lagu helaa waa numberka ugu weyn oo laga jaray ka ugu yar simple waa ka ugu weyn oo laga jaray ka ugu yar example haddaynu soo qaadno this is an example haddaynu soo qaadno waxaa lagu yidhi find the range
for the data set halkan aynu ka bilownay 38 55 75 40 58 51 and 64 say 53 69 57 waa isla example-ka ku yaala buugga haddaad haysato buugga haddaad haysato for example wuxuu ka bilaamayaa page-ka casharkani gaar waliba qaybtii dambe aynu soo horreysinay qaybtii labaad baynu soo horreysinay waa page-ka 162 ilaa iyo 172 ayaynu eegi doonaa intaynu ku gaarnay insha allah casharkan waa page 162 ilaa 172 page-ka 162 ilaa 172 marka 162 buu ka bilaabmaya waa 162 page-ka 162 buu ku yaala example kan koobaad find the range for the data set ama 163 mid buu noqonayaa waaye for the data set waa yahay 38 55 75 40 58 51 64 53 69 57 68 and waxaa ku xiga 59 63 range-kii baynu soo saarayna waa ka datadii aad haysataa waa taa waay range-ka markaynu soo saarayno waxaynu kala jaraynaa un range-ka markaynu soo saarayno waxaynu kala jaraynaa un numberka u weyn iyo ka u yar waay ka u weyn iyo ka u yar waa kuwe dee numberka u weyn markaynu eegno imika saa u eegno ka soo qaad inuu yahay imtixaan marks arday laga qaadayba markiskii ardaydu ay keeneen imtixaanka inuu yahay matalan waa kan markiskii ardaydu ay keeneen 8 5 iyo 50 5 iyo 70 40 50 8 50 iyo 1 60 iyo 4 saasaynu haysanaa waay ardayga ugu sareeya wuxuu keenay 5 iyo 70 waay range-ka maxaynu ku helaa range-ka waxaynu ku helaa waynu nidhi sida inoogu taala inooga muuqata casharka largest value minus smallest value waxa weeyaan numberka u weyn oo laga jaray numberka u yar ka u weyn waa 5 iyo 70 oo laga jaray ka u yarna waxa weeyaan say 38 ka u yarna waa 8 iyo 30 wuxuu noqonayaa markaa 7 iyo numberka u yar waa 8 iyo 30 numberka u yar waa 8 iyo 30 ka u weyn ee dhaatada ku jiraana waa 5 iyo 70 numberka weyn ee dhaytadeeda ku jira waa 5 iyo 70 ka u yarna wuxuu noqonayaa 8 iyo 30 kala goyntoodu waxa weeye 37 marka the range of this data is 37 range-ku wuxuu noqonayaa 7 iyo 30 buu noqonayaa range of the data set is 37 kaasi waa qaybta koobaad waxa weeyaan waa range-kii haddaynu soo yaro dul marno range-ka waxaa lagu helaa largest value minus smallest value example baan siiyey example-kan ka soo qaadanaya yahay imtixaankii markiska ardayda keeneen waxaynu ka bilownay 8 iyo 30 5 iyo 50 5 iyo 70 saasaynu wadnay ilaa iyo 63 waxaynu range-ka waxaynu ka helaa haye largest value minus smallest value waa ka weyn waa 75 ka yarna waa 80 kala goyntoodu waxay noqonaysaa 37 waa yahay kaas waa casharkeeni koobaad waxaynu insha Allah isaga qaybtan range-kii oo noqonaya qaybtii koobaad waxaynu u gudbi doonaa insha Allah quartiles oo ah ka ku xiga waa range quartiles interquartile range and percentiles waxaynu israacin doonaa qaybtan aynu israacinayna waa quartiles and interquartile range percentile-ku isagu qaybta dambe haynoo noqdo waa yahay quartileska haddaynu ku bilowno quartiles are the values quartiles are the values that divide the data into 4 equal parts waxay u qaybiyaan datada quartilesku 4 qaybood oo isleeg haddaan soo qaado for example haddaynu ku yaro muujino sidii sawir oo kale waa kan waxaynu u sameynay datadeenni inay tahay qaabkan oo kale waa halkii ugu hoosay minimum value-gii iyo maximum value-gii bartaa bartanka oo ah halka laba isleeg u qaybisa ama 50% of the data wuxuu noqonayaa waxa loo yaqaanaa second quartile this is known as 50% of the data way half-ka hore kala barhkiisa waxaa loo yaqaanaa isagana Q1 waa first quartile ama lower quartile half-ka dambe kala barhkiisa
halfka dambe kala barhkiisa isagana waxaa loo yaqaanaa Q3. These are known quartiles. Data kastood haysataa markaa waxay u qaybinaysaa ama waxay noqonaysaa saddex quartile bay noqonaysaa. Haddaynu soo qaadno haddaba for example quartileska waxaa lagu helaa Q1 waxaa lagu helaa 1 divided by 4 into n plus 1. Way Q2 waxaa lagu helaa 1 divided by 2 into n plus 1. Q3 iyadana waxaa lagu helaa 3 divided by 4 into n plus 1. Waka waa page waxaan filayaa 163 ama 164 ayaynu ku soconaa. Waxay ku xiga interquartile range saddexdii quartile waa kan. Quartilesku waxa weeyaan faaliyada dhaytada u kala qaybiya afar qaybood oo isleeg. Marka dhayta kasto lagu siiyaa waxay yeelan kartaa saddex quartile bay yeelan kartaa. First quartile, second quartile iyo upper quartile. First quartile waxa lagu helaa oo loo yaqaano Q1 waa kan. Waxaanu ku helaa 1 divided by 4 into n plus 1. Second quartile oo ah 50% of the data waxaanu ku helaa isagana half lagu dhuftay n plus 1. Half lagu dhuftay n plus 1. Waaye quartile-ka saddexaad oo loo yaqaano upper quartile waxaanu ku helaa isagana 3 divided by 4 into n plus 1. Waxa ku xigaya halkaa oo inoogu jira interquartile range. Waxaanu israacinay quartile iyo interquartile range. Quartile and interquartile range. Interquartile range oo loo soo gaabiyo IQR. Interquartile range waxa weeyaan kala goynta labadan. Interquartile range waxaanu naqaanaa labada kala goyntooda. The difference between the upper and lower quartile. Interquartile range is the difference between the upper and lower quartile. Interquartile range waxa weeyaan waa kala goynta quartile-ka upper quartile-ka iyo lower quartile-ka waa kan. Waa Q3 oo laga jaray Q1. Q3 oo laga jaray Q1. Example of the quartiles. Waxaan filayaa example-kaasi aad aynu ugu fiirsano. Waayo waxaan insha Allah de kulley casharada waa soo koobkoobaynaa. Waxaanu doonaynaa inaanu 10 pages kaga faa'iideysano oo insha Allah 30 minutes ama wax ku dhow waxaynu soo qaadanaynaa for the data set say 20 9 15 25 32 30 and 12 way waxaad soo saartaa baa lagu yidhi fine ama calculate the second quartile ka soo saar. Waxaa kaloo soo saartaa the interquartile range. Interquartile range ka soo saar. Waxaa kaloo soo saartaa the semi interquartile range. Inta kulley su'aalaha la weydiinayaa waxaan filayaa intan ma sii dhaafi karaan iyo waa intan wax ku dhex jiruun bay noqonayaan. Waxa ugu horeeya la weydiiyey waxa weeyaan second quartile-kii kulley saddexdoodiba waa maraynaa. Aynu soo sheegnay quartileski saddexdii quartile ba waan maraynaa sida halkan inooga muuqata. Waxa ugu horeeya second quartile-ka soo saar baa lagu yidhi. Second quartile-ku muxuu ahaa? Maxaynu ku helaynay second quartile-ku? Second quartile-ku waa median-kii. Second quartile-ku sida halkan inooga muuqata waa kii bartanka. Waxa loo yaqaanaa median. Second quartile-ka haddaad maqasho waxa la yidhaahdaa median baynu odhanaynaa. dee sida median-ka loo soo saaro hore inuu naqaanayba waa inaga casharkii hore ku soo aragnay. Isla sidii uun baynu u soo saari karnaa inkastoo kuwan kale laftooda aynu uga faa'iideysanayno formula aynu u samaynay. Second quartile-ku waa formulada labaad.
waa formulada labaad ayaa lagu helaa second quartileka first quartilekuna waa tan third quartilekuna waa kan interquartile rangekuna waa halkan noogu taala semi interquartileka isaga waa waxaa la yidhahdaa waa intan oo laba loo sii qaybiyey average of these two waay aynu u nimaadno ka koowaad second quartileka maxaa lagu helaa second quartileka aynu imanna waay dhaytadeeni waa tan dhaytadii haddaba halkaa hal qodob baa jira hal qodob ayaa jira markaynu kow ka shaqaynayno aynu doonayno inaynu quartileska ka shaqayno markaynu quartileska doonayno inaynu ka shaqayno qodobka ugu horeeyaynu samaynayna waxa weeyaan sidii aynu hore usoo sheegnay markaynu soo saarayna miinka iyo medianka iyo kuwa waa inaynu dhaytadaynu haysano arrange garaynaa order waa inaynu u qornaa dhaytada aynu haysano waa inaynu order u qornaa arrange garaynaa waayahay maxaa ugu yar baynu ka bilaabaynaa numberka ugu yar waxaynu ka bilaabaynaa halkan waxaynu haysanaa 9 baa ugu horeeya 9 arrange garay horta waxaynu arrange garaynaynaa waa kan waa 9 waxaa ku xiga say 12 arrange waynu arrange garaynaynaa marka hore waxaa ku xiga 12 waxaa ku xiga say 15 20 haye 25 30 iyo 32 markaynu arrange garayno waxaynu soo saaraynaa haddaba q2 waa mediankii ama second quartilekii q2 waxaa lagu helaa 1/2 into n plus 1 waa kaa waay q2 waxaa lagu helaa 1/2 into n plus 1 waa tan waay ntaydu waa imisa waa 1 2 iyo 3 waa 1 2 3 4 5 6 7 waay halkaasaan gelinayaa 7 waxaan onayaa 1/2 into 7 plus 1 7 plus 1 waay 7 marka loo geeyo hal waa 8 8 marka nuu qaybno 2 waa 4 waa booska afraad numberka ku jira ayaa noqonaya q2 kan waxaa la yidhaahdaa quartile index baynu odhan karnaa waa position ku sheega hadda jeer indexku this is the boss haddaad aragto waxaa th la socotaa waa booskii hadhow kagama tegaysid halkaa imtixaanka haddii lagu weydiiyo oo kale lagu dhaha q2 soo saar halkaa haddaad kaga tagto weli maan soo saarin q2 waa positionku baad soo saartay q2 haddaba booskii weeyaan th taa la socotaad ku garanaysaa haddaad aragto waxaa th la socoto waa booskii waa positionkii bay noo tilmaamaysaa ama positionkii uu ku dhacayay waa kan tiride 1 2 3 4 waa kaa q2 waa kaa q2 waxa weeyaan waa 20 baynu odhanayna yes q2 waxay noqonayaa 20 okay waa mediankii de si kale haddaynu u dhigno imika waa kii aynu soo sheegaynay miynaan odhan haddii dhaytada lagu siiyo lagu yidhaahdo soo saar medianku hadday dhaytadu tahay odd number of values wuxuu noqonayaa the middle value numberka dhexe saddexna xaggan ka xigaan saddexna xaggan ka xigaan de waa median q2 is the median waayahay waxaa ku xiga kaasi waa ka koobaad second quartile is the median second quartile haddaad maqasho waa mediankii halkaa waxay noogu xiga qodobka labaad interquartile range the interquartile range interquartile rangeka maxaa lagu helaa interquartile rangeku waa iqr dee waxaan isweydiinayaa markiiba waxaa lagu helaa q3 oo laga jaray q1 q3 oo laga jaray q1 waa inaan helaa labadan waa inaan helaa q3 sorry waa inaan helaa q3 iyo q1 waa inaan soo helaa labadan si aan interquartile range ku soo saaro waa inaan helaa q1 iyo q2 q3 q3 maxaa lagu helaa waka q3 waxaa lagu helaa 3/4 into n plus 1 waka waay 3/4 into 7 plus 1 waa 8 loo qaybiyey waa booska lixaad intaa markan calculation ka sameeyo booska lixaad maxaa ku jira waxaa ku jira soo 3 waa 7 waka q3 interquartile range waa kan waa 7 baan helay waa 7 q3 waa 30 aniga halkaa ku soo saaray waka 30 waxa ii hadhay q1 waa q1 waa inaan helaa way q1 na waxaan ku helayaa 1/4 into n plus 1 intaydu waa 7 ahayd isma bedelaysa iyadu 1/4 7 loo geeyay hal waka 1/4 plus n plus 1 7 plus 1 waa 8 u qaybi 4 waxay noqonaysaa waa 2 waa booska labaad maxaa ku jira 12 waka q1 na waa 12 q1 waa 12 laga jaray 12 interquartile range waxa weeyaan q3 minus q1 waa 30 minus 12 waxay noqonaysaa 18 waa 18 su'aasha saddexaad
semi interquartile range haddii lagu weydiiyo semi interquartile range waxaa possible inaanay buugga kuugu olin haddii semi interquartile range lagu weydiiyo semi interquartile rangeku waxa weeyaan semi interquartile range waxa weeyaan waa semi interquartile range waxa lagu helaa q3 minus q1 oo laba loo qaybiyey waa intii aan soo helon laba u qaybiyo horaan u soo saaray bade q3 minus q1 horaan u haystay waa 18 aniga hore u soo saaray way laba u qaybi 18 divided by 2 muxuu noqonayaa say 9 semi interquartile range-kuna waxa weeyaan waa 9 waa yahay haddaynu ku yar noqono marka la soo saarayo quartileska waxa muhiim ah ama ha noqdo second quartile ama lower quartile ama upper quartile ha noqdo waxa muhiim horta daatada order baynu u qorinaa markaynu order u qorno mid walba formuladiisa baynu isticmaalana ilaa mid walba formula nu siinay q2 waxa lagu helaa intan 1 divided by 2 into n plus 1 way 1 divided by 2 into n teedu waa imisa 10 baa ma 15 baa waan tirinayaa markaan tirsaday imika waa 7 7 halka galay 7 loo geeyay hal 8 loo qaybiyay 2 waa afraad saasaan wadaya way marka boss qm position kii inoo sheegaysa this is the quartile index this is the position kii afraad numberka afraad dhacaya waa kii waa kan 1 2 3 4 waa ka q2 way kaasaan qoraya waxa ku xiga q3 iyo q1 hadii la weydiiyo marka q3 iyo q1 waxa la weydiiyay imika interquartile range ka soo saar baa la guri interquartile waxaan ku helaa q3 oo laga jiray q1 waa 30 minus 12 30 xageenu ka keenay waxaanu soo saarnaa third quartile ama upper quartile waxa lagu helaa 3 divided by 4 into n plus 1 7 plus 1 divided by 4 2 times 3 6 booska lixaad maxaa ku jira de waa kana tirso dheetida haysta waa kan waa 30 waa yahay q1 1 divided by 4 into n plus 1 way 7 plus 1 divided by 4 waa 2 booska labaad maxaa ku jira dheetideedii baan dib u eegaya waxaa ku jira 12 waa q1 interquartile range-kuna waa kala goynta labada waa inaga soo saarnay semi interquartile range hadii lagu yidhaahdo waxa weeyaan laba u qaybi intii aad haysatay another example example 2 haddaynu ku xigsanay waxaa lagu yidhi fine find the lower, middle, and upper quartile for the data 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 haddaba waa kan uu soo gaaban yahay waxaan filayaa kan laftiisuna uu ku yaalaa buugga isla example-kan waa example-ka labaad ama saddexaad buuggu noqonayaa isaguna waxaa leena siiyey numberskan imika wax arrangement uma baahna order uma baahna orderkii waad haysataa way ku order garaysan yihiin numberskani waayo orderkii iyagaa u qoranba markaa imika hawl dambe oon qabanayaa ma jirto kol hadday orderkii u qoran yihiin waxaan samaynayaa shaqadii baan toos u bilaabaya lower quartile ayaan soo saaraya lower quartile waa q1 waxaa lagu helaa 1 divided by 4 into n plus 1 waa yahay waxay noqonaysaa q1 markaan soo saaro 1 divided by 4 waa imisa number of data valueskaygu waa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 waa 9 loo geeyey xabad waa 10 4 u qaybi waa 2.5 10 marka 4 loo qaybiyo waa 2.5 yes halkaa haddaba hal qodob baa ku jira markay decimal noqoto kuwii horeynu soo arkaynay waxaa nambaro whole numbers hadday decimal timaado hadday noqoto decimalku wuxuu noqon karaa un 3 baa loo kala saaraya 3 baynu kala saaraynaa waxaynu odhanaynaa hadduu decimalkaagu ka hooseeyo 0.5 hoos u round garee hadduu 0.5 ka sarreeyana numberkaa kor u round gareeyo 3 imika wixii 0.5 ka sarreeya sida 2.8 hadduu noqdo kale waxaynu odhanaynaa booska saddexaad ayaynu qaadanaynaa hadduu noqdo 2.2 oo kalena waxaynu qaadanaynaa booska labaad ayaynu qaadanaynaa
laakiin hadduu 0.5 noqdo wuu ka duwan yahay hadduu 0.5 noqdo waxaa la isu geynayaa numberka booska labaad ku jira iyo ka saddexaad waa kan q1 wuxuu noqonayaa booska labaad numberka ku jira oo ah 4 oo loo geeyey ka ku jira ka saddexaad oo laba loo qaybiyey averageka labaad iyo saddexaad maadaama uu yahay middlekii wuxuu noqonayaa kaasi markaa 9 loo qaybiyey laba waa 4.5 waa q1 waa yahay waxaa ku xiga say q2 ayaa isaguna inoogu xiga waa middle quartile q2 na waa 1/2 into n plus 1 waa kan waxay noqonaysaa 1/2 into 9 plus 1 waa 10 laba u qaybi waa 5 iyadu waxay soo baxday whole number waa 5 waxay soo baxday iyadu whole number bay soo baxday dee whole number hadday soo baxdo ma odhanayno xaggan u duub iyo xaggana iyo tahay iyadu waa caadi whole number markay soo baxdo waa numberka shanaad waan tusanaa 1 2 3 4 5 numberka shanaad waa maxay waa 7 q2 waxay noqonaysaa 7 waxaynu inoo hadhay q3 oo ah upper quartile lower waynu soo saarnay middle waynu soo saarnay waxay inoo hadhayaa upper quartile ku waa q3 waxaynu ku helaynaa 3/4 into n plus 1 waka waxay noqonaysaa 3/4 into 9 plus 1 ilan 9 bay hayde tirada data valueskaygu 9 number bay hayd waa kuwan 9kii number waxaynu odhananaa markaa 3/4 10 halkani markay tahay 30 afar u qaybi waa 7.5 iyaduna waxay soo baxday decimal haddaba waxaynu halkaa decimalku de waynaga sheegnay decimalku hadduu yahay hadday imika 7.2 soo bixi lahayd waxaynu odhan lahayn waa booska toddobaad hoos baynu u rown garaynaynaa hadday noqon lahayd 7.8 na ama 7.6 oo kale waxaynu odhan lahayn booska sideedaad ayaynu qaadan lahayn laakiin kol hadday soo baxday 7.5 wuxuu noqonayaa laba isugeyntooda average of 2 7 iyo 8 way soo tiri 1 2 3 4 5 6 7 kii toddobaad waa 9 waa q3 kii toddobaad waa 9 kii sideedaadna waa 10 loo qaybiyey laba waxa weeye 19 loo qaybiyey laba wuxuu noqonayaa 9.5 okay q3 iyo q1 iyo waa lower quartile oo ah q1 middle quartile oo ah mediankii ama second quartilekii iyo upper quartile oo ah q3 waayahay cashirkeenii labaad ayuu noqonayaa kani oo aynu ku soo aragnay rangekii iyo quartileskii iyo interquartile rangekii casharkan oo inooga baxaya tv-ga qaranka iyo idaacadda radio Hargeysa labadaba aad si toos ah uga dhageysan doontaan halkaa inoogu joogo insha Allah waa inoo casharka saddexaad wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu